iyadoo ay soconayaan howlaha gurmadka ee loo sameynayo dadka ay abaartu ku saameysay gobollada dalka ayaa maanta shirkadda amal group waxa ay lacag gaarayso 10,000 oo dollar ku wareejisay hay-adda alraxman foundation oo ka shaqeysa arrimaha gurmadka abaaraha taa oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qoysaska ay abaartu ku saameysay gobolka gedo goobta deeqda lacagta lagu wareejinaya ayaa waxaa ku sugnaa madaxda labada shirkadood waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay wakiilka amal group ee deegaanada jubbaland cismaan cabdi xasan. amal maxaan ku idhaahdaa waxay mar walba u taagan tahay garab istaagga dadkeeda iyo maxaan ku idhaahdaa ka qayb qaadashada dhibaatooyinka jira. sidaas darteed galabta waxaan ku wareejinaynaa alraxma, jamciyadda alraxma oo iyada ruuxeedu mar walba maxaan ku idhahdaa ka shaqaysa gargaarka iyo horumarinta lacag dhan 10,000 oo dollar insha Allah. gudoomiyaha fulinta alraxma foundation sheekh maxamed aadan waadi iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka saciid birmed cigaal oo lacagta deeqda la wareega ayaa sheegay in sidii loogu talagalay ay lacagta u gaarsiin doonaan qoysaska ay abaartu ku saameysay gobolka gedo. aad bay u mahadsan yihiin maamulka amal group oo tabrucaadkan alraxma foundation u dhiibay ayagoo loogu talagalay abaaraha gobolka jubbaland si guud si gaar ah gobolka gedo. ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro. amal shirkadda la yidhaahdo waxay ka mid tahay shirkadaha mar walbaba ka qayb qaata samafalka iyo horumarinta dalka ayagoo ah shirkad ganacsi ah haddana mar walba aanan hilmaamin doorka ay ku leeyihiin horumarinta arrimaha bulshada. abaartan taagan hadda runtii meel adag bay maraysaa dalka guud ahaan waa ogtihiin. gobolka jubbaland baa usii daran, gobolka gedo baana usii daran jubbaland. waxaan ka shaqaynaynay ilaa iyo bishii 11aad abaartan booyado badan baan dhaaminay biyo ah oo aad u fara badan. raashin baan qaybinay, lacag baan qaybinay, dalka lacag baan ka helnay, gudaha dibaddaan ka helnay. waa shirkaddii ugu horreysay ee shirkadaha waaweyn ee bangiyada waaweyn ah oo tabrucaadkan ugu wareejisay. waa ku mahadsan yihiin. runtii maanta oo kale xaaladdu waxay maraysaa meel adag. waad ogtihiin abaaraha dalka ka jira iyo culeysyada kale oo ka jira. haddii xataa hadda dadka ilaahay subxaana wa tacaala nimcadiisa cirka uu siiyo weli waxaa jira soo kabashada waxay u baahan tahay waqti oo dadku hantid xoolihiina waa dhaafeen tabaryari badanna waa jirtaa culays iyo haddeer iyo sicirka iska qaalobay waa iska jiraan. markasta tabarucaadka waa loo baahan yahay waana mid furan. runtii waxaad moodaa amal group maanta meeshii ugu munaasabsanayd oo ugu wanaagsaneed oo wax lagu bixiyay inay ku bixisay. annaguna haddaan nahay alraxma foundation aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. wax kaloo annagu kama shaqeyno, waxaan ka shaqeynaa tabarucaadka iyo horumarinta iyo mataqaanaa kaalmeynta dadka noocaas oo kale dhibaataankaas markay dhacaan. arrintan waxay imaanaysaa xilli weli gobollada dalka ay ka jiraan abaaro saameeya dadka iyo duunyada iyadoona saacadihii lasoo dhaafay gobollada qaar ay ka horeen raxmaddii eebe inkastoo weli gobollada qaar aysan ka da'in roobabka. waxaana issoo tarayaa qayladhaanta ka soo yeeraysa dadka ay abaartu ku saamaysay gobollada dalka. cabdulqaadir fantaastic warbaahinta qaranka muqdisho.